الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد كلمتنا ما أنت وحي لحريدا من أسباب السعادة سببها كان inuu qofku saciid noqdo si kale hadaynu dhigno nolol raaxo iyo nafis leh oo aan diiqad iyo ciriiri lahayn inuu qaadan karo wa kullu naas yadlubu dhalik wa anna li ba'dihim dadkoo dhamitaa way wada doonayaan laakiin darbaan gaari karayno dariiqadeedii aan maraynin dadka qofba meel un bay qodaxi kaga taagantay qofba meelun buu musbaar kaga taagan yahay mid waliba meelun buu ka yaabyaabsan yahay marka sidee baa noloshu nafis ugu noqon kartaa qofka nolol iska nafis leh oo warwarka iyo qulubka iyo qalaqu ku yar yahay sidee buu ku qaadan karaa adduunyada wax badan baa la baadi doonaa maanta laakiin islaamun baa lagu hayaataa sababaha sacaadada lagu gaari karo islaamkeenu uu sheegay nolol raaxo leh way badan tahay laakiin soddon ku dhawaad ayaynu ka qaadan doonaa inta waqtigu inoo saamaxay insha Allah inta waqtigu inoo saamaxay waana waqtiga leeynu ka dhigan sababahaas waxa kamid ah qawaacidka loo sameeyay fakir washkur inaad fikirta mahad noqdana أن تفكر وتشكر markaad hareerahaaga eegto wax badan aad fikirto waxa nicmada Ilaahay uu ku siiyay inaad hoos u eegto waxa dhici doonta in waxa kugu dalacan uu ka dego Ilaahay baa wuxuu wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha Ilaahay nicmooyinkiisa haddaad tirisaan ma koobi karaysaan caafimaadkaaga aad eegi amnigaaga cunadaada dharkaaga iyo hawadaada aad neefsanayso iyo dad intaaba waayay waxaad garan doontaa markaa adu waabad warwarsantay dad badan oo dhaantaaba inuu jiraba ilaahayna inooma yaraysan aad buu inooga waaniyay taasoo waxa uu asbaqa calaykum ni'amahu zaahiratan wa baadina isagoon dadka badh la hadlina la wada hadlay wuxuu ilaahay nicmooyinkiisa uu idin dhammaystiray teeda muuqata iyo taqarsoonba nicmada Ilaahay way badan tahay tu ku muuqata iyo tu aan dareemayn hunaaka ni'amun yusamma daqaa'iqun ni'am waxa jira nicmooyin la yiraahdo nicmooyinka qarsoon oo qofku uu garto un maalintu waayo waxaan unsanayaa dhakhtar baa u sheegaya wuxuu oranayaa waxa iyo noocaas ayaa ka maqan oo aad weydo cudurkani ku haya وما بان قوم حاينا هايسته نعمدا بريغي هore inay jirtaba ma aqooninba ilaahay ba markaa wuxuu dhifay bi ala rabbikuma tukadhiban nicmooyinka ilaahay teeba beeninaysa midna ha beeninina nabi maxamedna wuxuu calayhi salaatu wasalaam isagoo fikirkiisa shukrigeena faraya waxa eegtaan dadka idinka hooseeya markay adduunyada iyo waxa tabaysan noqoto dadka idinka sareeyaha eegina si aydan nicmada u fudaydsan in Ilaahay uu idinsiyo mar walba cid ba ka hooseysa wa fi anfusikum afala tubsirun baladna fiina meedan arkeen buu Ilaahay ma fikirtaan oo nafta aad u eegtaan wuxuu Ilaahay idin siiyay waxa ka maqan inta adeegayso yaarifuuna nicmatallahi thumma yunkirunaha marka uu Ilaahay dadka qaar baa nicmada Ilaahay garanayo haddana istiitiinaya nicmada Ilaahay bay garanayaan oo istiitiinayaan قاعدة لبعض وحوي ما مضافات وحي تجي وتجي وحي كضافي وكضافي إذا مركا وحلا إلى تذكر الماضي وتحزنه قتل للإرادة عند العقلاء قتل للإرادة وحي كضافي إن حصوصته وأتكمل قطود آدس وأتكيسه iraadadaadii iyo go'aankii aad qaadan lahayd bay dabcisaa shaygu islaamku sabirka u yaqaan wa qatlu lil iraada
qofku hadduu ciilkama karo noqdo wixii hore uun soo maray uunbaa u xambaarsan yahay hamigoodii iraado yeelan kari maayo hore u socon kari maayo arrinta noocaasoo kale cinda alcuqalaa'i tudwa walaa turwa baa la yidhaah dadka caqliga leh waa la laabaa waa la wariyaa laakiin lama sii wadwado ha laga faa'iidaysto tijaabooyinka iyo dhacdooyinka laakiin qalbigaaga inay disho maaha ilaahay baa wuxuu uhi tilka ummatun qad khalat lahaa maa kasabat walakum maa kasabtum kuwaasi way tegeenoo umma tagtay bay ahaayeene waxba ha ku warwarinoo ha ku warwareegine waxa idinla waxa soo socda ka warrama arrintaasina waa muhiim min asbaabi sacaada waxaa ka mid a yowmuka yowmuk maalinkaagu waa maantadaad joogto maalinkaagu waa maalinka aad joogto sidaa daraaddeed baa dhaqanka asxaabtu waxau ahaa idaa asbaxta falaa tantadir ilmasaa haddii waagu kuu baryo gabaldhac ha sugin haddii gabalku kuu dhacana waa kuu barya ha sugin maalinkaagaasunbaa waxaad u qaybinaysaa saacadihiisa sannado iyo ayaamo iyo bilo ayuunbaad u qaybinaysaa daqiiqadihiisana waad kala jiidaysa isagunbaad ka faa'iidaynaysaa waxuunaad odhanaysaa maantumaad haysataa khalaas marka maanta sidaad uga macaashtaa un weeye warkaaguba allah wuxuu uhi wakhud maa aataytuka wakun min ashaakiriin waxaan ku siiyey qaada buu ilaahay oo igu mahadnaq waxaana ugu muhiimsan maalinkaad haysato maalinkaad haysataa ugu muhiimsan awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakara wajaa'akum nadiir qadiyadda cimrigu qur-aanku ka warramaya waxaa ka mida min asbaabi sacaada utruki lmustaqbala xataa ya'ti mustaqbalka iska daah ilaa intuu imanayo mustaqbalka dadka qaarkood baa mustaqbaliyiin la yidhaahdaa qaarkoodna maadiyiin baa la yidhaahdaa odayaashiiyo waayeelka maadiyiin baa la yidhaahdaayo ma waxaanu arki jirnaya waxa maanta na haysta ayuunbaa yidhaha ragna raggii hore weeye warna waa intuu yidhi beri ay caynkaa ahayd annagoo halkaasa balaayaba imikay joog wixii hore uu yarwil maadigu la noolyihi walaakhar mid kalenoo dhallinyaro ana waxa ku weyn mushkiladda mustaqbalka inantii iyo inankii yaraaba waxay leen mustaqbalkaygii haddaanan tahriibin ma mustaqbal banaya halkan mustaqbal mushkilatulmustaqbaliyiin baa kuwaana la idhaahdaa ilaahay baa wuxuu uhi ataa amrullaahi falaa tastacjiluuh arrinkii ilaahay wuu iman doonaa waxba ha dedejisanina waa maadin bimacna mustaqbal arrinka ilaahay wuu soo socdaaye waxba ha dedejisanin wuxuu ilaahay keenayo wuu iman doonaa saa daraaddeed baa la yidhaahdaa alaxdaaثu laa tusbaq lianlaa takuuna ijhaada dhacdooyinka soo socda lagama hor dhaco si aanu arrinku dhicisu noqon ila lama gaadhinbe alaxdaaث laa tusbaq waa la odorosi karaa hilaadin iyo odoros baa la yidhaahdaa waa laga sii fikiri karaa in shaa allahu haddii saa wax noqdaan waa la fikiri karaa laakiin lagama warwaro la iskumana dhibo sidaa daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa dee midhahaba waa la diiday in la goosto ilaa ay bislaadaan midhaha ugurida laguma goosto si aan anfacooda u lumin falaa takhaafu aljuuca waalmarada waalfaqr ha ka cabsanin mustaqbalka in gaaja ku dilayso in cudur ku dilayo in cabsii ku dilayso warwarkaa aad mustaqbalka ka qabta ka daah ilaahay baa wuxuu uhi ashayطaanu yacidukum اlfaqra waya'murukum biاlfaxshaa wallahu yacidukum makfirata minhu wafadla shaydaanku wuxuu idin yaboohayaa faqriga ayuu idin yaboohayaa waxba heli maysid buu koodhanaya sidaa hadday arrinta kusii socoto shaqo la'aantanina jirto guur la'aantanina jirto meeshanna aad joogto alla waxaad helaysaa ma jiro faqrigaas iyo foolxumo isku rakiban buu la taagan inuu kuu yabooa ilaahayna dembi dhaaf iyo fadli weyn ayuu ilaahayna idin yaboohayaa wax weyn weeye markaa mustaqbalkaa ilaahay ha loo daayo qofku sababihiisa ha qaato laakiin warwarkaa laga hadlayaa warwarka kaa haya mustaqbalka marka haddaad aragto qof sidhinka mustaqbalku ku dallacanya war ka daadhe warwarkiisa iska daa waxaa qawaacidkaas ka mid ah kayfa tuwaajihu naqd alaathim laabudda an tacrifa kayfa tuwaajihu naqd alaathim
dadka kaa soo horjeeda ee kugu kacsan sidaad iyagana arrinkooda uga dabaalan lahayd qofku hadduu dadka iskaba daayaba isagaan la daynayn diiqad badanna waxa ku abuuraya dadku daba socdoon kuba daynayninba taasaa iyaduna wax jira ah oo dadka in badan nolosha ka xumaynaysa waxaad ku soo ururinba taasoo aad kaga nasanba dee qaar baa ilaahay iyo rasuulkaba caayay adiguna miskiin yar baa te ogow ilaahay addoommaha waxaana wanaag ahayn dee ulama yeelna haddana intay af kala qaadaanba ilaahaaga waxaa ku samaydhaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa naxariistii ummadda waxaan khayr lahaynba ulama imanba wax sharaba haddana nebigaaga waxaa ku sameeya bay leeyihin adiga balka war adigoo dee dadkii dhibka lahaa ku jira adigana maxaad u malaysanaysaa in wax lagaa sheegi waayo nin shaacirabaa wuxuu idhi xasadulfataa idaa lam yanaaluu sacya faannaasu acdaa'u lahu wa khusuumu ninkaa dhallinyarada ah way xaasideen buuhi markay dadaalkiisii gaadhi waayeen dadkuna cadow iyo kuwa la murmay u noqdeen marka arrintaana ku xisaabta haddii aad qof yahow doonayso an takuuna maqbuulan lada aljamiic saliiman min alcuyuubi cinda alcaalami hada mustaxiil dadkoo dhammi inay soo wada dhoweeyaan dadkoo dhan agtooda midaan ceeb lahayn haddaad taa doonayso arrintaas waa mustaxiilaha ku daalin ka naso markaa mushkiladda ah maxay dadku maxaa igu sallidee dadka taana halkaa iska dhig wixii wanaagsan wad waxaa wax kaa sheegana weydaaro qawaacidka waxaa ka mida laa tantadir shukran min axad qawaacidka sacaadada sababaheeda ah waxaa ka mida cidna mahadnaqa ka doonin cidna mahadnaqa ka doonin ilaahay mooyaane subxaanahu wa tacaala qofka khayrka sameeya ma waayo jawaabtiisa laakiin laa taqdab idaa jaxaduu macruufak ha cadhoonin markay macruufkaaga qiri waayaan dadku laa lishayin ilaa liannaka axsanta ilayhim wax kalena uma diidayaane waad ka wanaag badatay ama iyagaabaad wax siiso dadka qaarkood baaba haddii aanad waxba ku tarin aan waxba kaa sheegin kuna dabagelin mushkiladooda ay bilaabantaa un markaad wax ku tarto soo maaha markaad wax ku tarto unbuu bilaabayaa balaayadiisa marka aanad waxba ku tarin ama aydaan isdhexgelin arrin iyo aqoon iyo adduun iyo markaanad waxbaba ku tarinba maba ku taataabanayo markaad u bilowdaabuu isna ku bilaabaya markaa ha odhanin warkan markii horeba imuu daba socon jirine ama ummaddii maxaa igu sallida imminkaa baan ugu waxtaroonahaye ha odhanin ilaahay baa wuxu uhi wamaa naqamuu ilaa an aqnaahum allaahu warasuuluhu min fadlih nimankaa munaafiqiinta ahay waxay dadkaba ku daba socdaan ilaahay iyo rasuulkaa wax siiyey waxa uga daray deeqdu ilaahay siiyey iyo dadaalku rasuulku u galay munaafiqiintuba nebiga waxay ugu darnaayeen markuu wax siiyo markuu ilaahay u kordhiyo deeqda markaasay ugu darnaan jireen saas weeye carabtu markay arrintaa daraaseeyeen waxay idhaahdeen laa tasnaci ilmacruuf laa yaji'ak shar dadka khayrba ha u samayna si aan sharba kugu iman waa ma aha wanaagsanayn laakiin waxay arkeen waxa mushkiladda ugu badan inay tahay un dadka wixii ay wax siiyaan sidoo kale libaax wuxuu kugu bartuu kugu dilaabay soomaaliduna odhan jireen adigu taa ha yeeline icmal ilkhayra liwajhi illaahi tacaala wixii khayra ilaahay wejigiisa u samee ila ilaahay saasuu ku ammaanay muuminiintu waxay leeyihiin innamaa nudcimukum liwajhi illaah laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuuran ilaahay daraaddii baanu wax idiin siinaynaaye abaalmarin idinkama doonayna iyo mahadnaqtoona gaaladu waxay ka xanaaqaan marka macruuf ay cid u sameeyaan ee thankiyuu la odhan waayo waad mahadsantay kii wuxuu sameeyey ama wax siiyey markuu waad mahadsantay odhan waayo soomaalida iyo ay idhaahdaan miyuu waalan yihin ilamabuu hadalbe jawaabba imuu siininbe waa maxay muxuu odhan waayo waad mahadsantay marka yadlubuuna shukra min alkhayr ilaahay baanay shukri ka doonaynin dad kale shukriga ka doonayaan nin shaaciraa waxa uu arkay ninkii uu tababaru u dadaalay dadkana uu ku soo dhex daray oo maanta uguba neceb dad
markaasaa wuxuu uhi ucallimuhu الrimaayata kula yawmi falama اshtadda saaciduhu ramaani inankaa isagay arkaysaan buu idhi maalin walba waxaan bari jiray shiishka iyo rag siduu isaga celin lahaa mar alla markuu xoogaystuunbaabu aniga igu bilaabay buui aniga ayuu igu bilaabo wuu igu dhugtamay buui marka sidaasoo ficilkiibuu sheegay qowlkuna saasuu la mid noqonayaa hadday saaxiibbada tahay hadday dadkaad madaxda u tahay haddii ay ehelka tahay in badan baa abaalka la siiya uga daraa ha la yaabin haddaba nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa waxa uu ku yidhi laysa alwaasilu bilmukaafi qofka qaraabada xidhiidhiya lama yidhaahdo qofka markay wanaajiyaanun dadka wanaajiya qofka abaalguda lama yidhaahdo waasil qaraabo xidhiidhiya lama yidhaahdo ka dadka u abaalguda qaraabo xidhiidhiyaha waxaa la yidhaahdaa qofka abaal mariya qaaraan abaalba ku lahayn ee hadday doonaan inkaaraba u leh waa tan nafteedu ka hadlaya nebigu calayhi salaatu wasalaam qawaaxidka waxaa ka mid ah min asbaabi asacaada alixsaanu ila alkhayr inshiraaxun lisuduur inaad dadka u samafasho laabtaaday raaxa ku reebtaa inaad dadka la colaatantana ka ugu horreeya diiqadaysani waa adiga macnaha in gacani kugu maqan tahay ama dulmi kugu maqan yahay waxa ka dooroon in adiga gacani kaa maqan tahay ama abaal aan lagugu lahayn ama wax kaa maqan yihiin adiga wa min asbaabi asacaada aljamiilu kasmihi waalmacruufu ka rasmih waalkhayru ka dacmih waxa macruufka la yidhaahdaa sida magaciisunbuu la mid yahay jamiil wax wanaagsan weeye wanaagguna waa saasunbuu wanaagsan yahay sida magaciisu wanaagsan yahu wanaagsan yahay marka waxaa la yidhaha awalu lmustafiidiin iscaad annaasi hum lmutafadiluuna liliscaad bihada aliscaad dadka had iyo jeer ugu wanaag badani waa kuwa wanaagga sameeya haddaad wanaag dad u samayso wanaaggaa cidda ugu horraysa helaysa oo adiga waayo waad nasanaysaa inaad waajibkaagii gudatayna waa dareemaysaa inaanad godobaysnay baad dareemaysaa in adiga wax kaa maqan yihiin baad dareemaysaa kullu daalik arrimahaasoo dhan waxay iscaadka waxyaabaha keena weeye iscaadku maaha intiqaamka iyo aargoosiga laakiin iscaadku sacaadada waxa weeye dulqaadka intaad gabban lahayd in adiga lagaa gabbado mid baa xoolo kaa dhacay soo maaha ha ku goonaatee ugdaah mid baa been kuu sheegay ha kaga daba tegin waxbuu kaala maqan yahay ha kaga daba tegina ku daah mushkilad kaluu keeni lahaa iyo diiqad kaluu ku gelin lahaabaa halkaasay kaaga odnaanaysa ninbaa dadka had iyo jeer waxuunbuu amaahin jiray markay idhaahdaan amaaha markay ka doonaan wuxuu ogyahay inaanu soo celinayn intuu ku soo noqnoqon lahaa su'aalo badan uu weydiin lahaa wuu amaahinayaa uun marka 10 jeeroo wax weydiin lahaa halkaa mare uu amaahiyey ayuu kaga hadhayaa inuu markan la baxsanayaa buu ogyahay la baxsada buu leeyahay soo noqonin ha firdhado sidaasi ayaa maaragtay ihsaan sacaadadu ay tahay wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza abubakar buu ilaahay ammaanayo wuxuu idhi cid gacan ku lihi ma jirto isagunbaa dadka abaal gudi jiraye isagu cidinaba waxba abaal laguma lahayn min asbaabi sacaada waxaa ka mida nolosha nafiskeeda waxyaabaha kuu keeni kara udrud ilfaraaqa bilcamal faraaqa macnaha jaaniska aad leedahay iyo gacan madhnaanta waxa aad ku dishaa waxqabad macnaha gacan madhnaanin oo adiga oo iska faariqahoo aan waxba haynin ha taagnaanin taasi nolosha dhadhankeeda iyo sacaadadeeda way lumisaa laakiin waa inaad camal ku qabataa oo aad ku buuxiso walow riyaado iyo jidhkaagoo tababartana ha ahaatee oo waxaa la yidhaahdaa alfaariquuna fi lxayaa hum ahlu lirjaafi washaa'icaat dadka faraaqa lihi waa dadka ugu badan ee wararkana wareejiya ummaddana khalkhaliya dadka laakiin shaqada badan haystaa waa dadka uguna aamus badan waxa la yidhi baa la yidhidana ugu yaraysta soo soomaalida maad arag bilaa shaqay u badan yihin markaa qofkii tamar la'aan maayo tamartiisii wuxuu ku howlgelinayaa uun shaa'icaadka waxa badan ee la sheegay la wareejiyo dadkoo warwar lagu abuuro qaar la isku diro dee goolaaftankiibu wadaya iyo fadhi ku dir marka hadduu qofkani shaqo tegi lahaa hawshani ma timaadeen
alla munaafiqiinta eedeeya wuxuu yidhi raduu bian yakuunuu maca alkhawaalif nimanka hanyaraantooda waxay raalli ka noqdeen dumarkii iyo carruurta guryaha laga tegay inay la fadhiyaan way ka soo hadhaan raggii waaweynaa ee jihaadayey ee faraaqooda camal cibaada oo dagaala ku buuxinayay sidoo kale waxaa la yidhaha idbaxi lfaraaqa bisikiini alcamal culimmada adibadu waxa ay sheegayaan boqolkiiba konton dadka daraasada sameeyey xataa muslimiintaba ahayn boqolkiiba konton sacaadada waxa ay qaabilsan tahay qofku inuu camal qabto oo muruqyadiisa uu maalo sacaadada qayb weyn bay ka tahay saa daraaddeed baa had iyo jeer maskax maalka waxa ka sacaado badan dadka muruq maalka oo dadkaa dhismaha iyo kuwa beeralayda iyo yuqariduuna bilanaashiidi kalcasaafiir baa laydhaha way iska heesayaan sida shimbirahoo kale ayaa hawleed ayay wataan iyagoo muruqooda maalaya oo qosol iyo farxad ku nool halka dadka mufakiriintii yataqallabuuna cala alfurush furaashyada ay isrogrogayaan ee ay seexan laayihiin marka taasina aad bay muhiim u tahayoo si aynu uga nasanno dhibaatadayna haysata wax badan waa inaynu shaqooyin samaysanaa shaqooyin inaad adigu shaqo samayso weeye oo aanad soo lignaanin uunad soo fadhiin si noloshu macna kugu samayso marka dadkan faraha badane ama isdilaya ama rabshada abuuraya ama tahriibaya ama buuqu ka dhex socdo haddii qoloba meel lagu jaheeyo sacaadaa iman lahayd sacaadada mujtamaca ayaa iman lahayd waxaa ka mida min asbaabi sacaada laa takun immaca ha noqonin qof nacam leh oo dadka unu jiibiya xadiid maaha laakiin waa ahar mawquufa sida saxiixa ah oo meelaha qaarkood inuu xadiid yahay bay xusaan inuu marfuuc yahay waxa ka saxiixsan inuu maqaalad cabdilaahi bin mascuud yahay marka inaad adigu shakhsiyadaada ilowda maaha laa tansa nafsak walaa shakhsiyatak laa tansahir fi laakhar aw fi laakhariin naftaada ha ilaawin hana tasaynin dadka kalena ha ku dhex milmin oo yaan lagaa dhex hadlin haddaad nin weynta yaan lagaa dhex hadlin caqli aad leedahay iyo cilmi aad leedahay ku hadal iyo khibrad aad leedahay oo waxaad ogaataa khalqiga sidan ilaahay muuqaalkooda u kala duway inuu dee u kala duwan yahay caqligooda iyo macnawiyaadkooda marka haddii caqligaaga la isticmaalo oo lagaa dhex hadlo dee maalin walba in yaroo lagu kiciyaabaa laguu soo sheegi in yaroo lagaaga cadhaysiiyuunbaa lagu laqimi daroobiskaa lagaaga cadhaysiinaa lagu dhibqinaya cerkaasaad maraysa haddana waa lagaa dejin haddana waa lagu dhibqin marka waxaad noqon doontaa qof hadallo iyo fikrado dad kale la karaya ee wixii lagu sheegay ilaahay wuxuu caqliga kugu siiyey inaad waxna diiddo waxna ka doodo waxna aqbasho marka waxyaabaha sacaadada nolosha keena waxaa ka mida iyo nafiska inaad caqligaaga iyo cilmigaaga ku socon karto ilaahay baa wuxuu ihi qad calima kullu unaasin mashrabahum walikullin wajhatun huwa muwalliha qof waliba mashrab buu leeyahay meelu ka cabo afkaartiisa ka qaato qof waliba qiblo u jeedsadaa buu leeyahay marka adigu qofuun qibladaada ha ka dhigan waxaa ka mida min asbaabi sacaada kuwa u muhiimsana muslimku leeyahayna ka mid a aliimaanu bilqadaa'i waalqanaacati bihi inaad rumaysan tahay wuxuu ilaahay qadaray kuna qanacsan tahay aad bay muhiim u tahay taasina ilaahay baa wuxuu uhi maa asaaban min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ilaa fii kitaabin min qabli an nabra'ahaa wax kasta oo idin soo gaadho oo musiibo ah cir iyo dhul ilaahay horuu u sii qoray musiibadan intaanay sooba bixin baabay sii qornaydba sidaa daraaddeed caqiidadaasi markay laabtaada gasho waxaa la yidhahdaa saarat ilbaliyatu catiya waalmixnatu minxa balaayadu waxay noqonaysaa barkhad mixnada musiibada kugu dhacdayna waxay noqonaysaa minxa deeq bay noqonaysaa ila waad ka macaashto waad ka faa'iidaysae man yurid illaahu bihi khayran yusab minhu nebigaa wuxuu uhi qofku ilaahay khayr la doono musiibu ayuu taabsiiyaa qofka ilaahay khayru la doono buu rasuulku leeyahy musiibo la'aan ma noqdo islaamu waxay idhaahdaan shaydaan baan bukoonin soo kamaad maqal shaydaan ayaan bukoonine insigu wuu bukoodaabay ku leeyihin macnaha muslimka balaaya ma seegto waa kaa nebigu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam qofku ilaahay khayr la doono musiibunbuu ku ridaa
hana odhanin si aan sacaadadu kaaga xumaanin low annii facaltu kada wakada lakaana kada wakada faina low taftaxu camala الshayطaan walaakin qul maa qadara allah wamaa shaaa facal haddaan waxaa samayn lahaa ha odhan laakiin waxaad tidhaahdaa ilaahay baa qadaray wuxuu ilaahay qadarayna wuu hirgelayaa sidaa isku qanci marka inaad qadarka rumaysan tahay wax badan bay qaanacaad ku siisaa waxay ku siisaa nolol wanaagsan wixii ku dhaafayna uma warwaraysid waxa aad heshayna lama yaabaysid mid walba ilaahay baa kuu qadaray baad leedahay arrintaasina waa arrinta tobnaada keenaysa min asbaabi sacaada ee qofku isagoo balaayo weyniba haysato iskana faraxsan yahay iskana qoslayo oo iska nafis yahay intaasaynu ku joojin insha allah wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu